magaalada Garowe caasimada Puntland waxaa habeennimadii xalay toole kulan xasaasi ah yeeshay madaxweynaha Puntland qayb ka mid ah ismada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn xubnaha heer wasiir iyo heer xildhibaan ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada SSC iyo xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee ku jira xukuumadda Puntland. kulankan ayaa sida aan xogta ku helnay ujeedkiisu waxa uu ahaa mid ay dabada ka riixayeen ismada SSC qayb ka mid ah isla markaasina ay ku hordhigeen madaxweynaha Puntland in uu markaasi ajenda cad ka yeesho soo celinta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidii loogu soo celin lahaa gacanta Puntland. sidoo kale ismadu waxa ay hordhigeen dalab ah madaxweynaha in maleeshiyaadka u qaramaysan Somaliland ee ku sugan goboladaasi xukuumadda Puntland ay ku bixiso dhaqaale iyo juhdi sidii gacanta Puntland ay ugu soo noqon lahaayeen. isla markaasina waxa xukuumadda dhankeeda oo uu hadlayay xilligaasi madaxweynuhu Puntland Siciid Dani waxa uu sheegay in dalabkaasi ismadu uu ahaa markii horeba ololihiisi uu ku galay campaign-ka isla markaasina si degdeg ah uu goboladaas uga qayb qaadanayo soo celintooda. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu qeexay in markaasi loo baahan yahay guddi u dhaxaysa madaxtooyada iyo ismada isla markaasina waxa goobta lagu sameeyay isla xalayba laguna magacaabay gudidii iyadoo la sheegay isla saacadaasiba in ay hawshu bilaaban doonto xukuumaduna ay ka yeelan doonto ajenda cad